tushadiyo laadiyo xaraadheer langabi ku taaloy lulayaan dabayluhu xiisaha ku laalane kalgacaylkii lumiye loxoskii ku dumiye guurkii lugooye leefoo hale. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلتم معنا ونكسن إذا أنتم بمركز هذا نقدر ونسان إسكستان نوار كسان داود يالك هذا نقدر ونسان وارشيك ميديا فديو دي هي مقالة إدمنتون قبل كالبرتا تركن كندا داود يال واحد كسر بتان برنامج كان امتحنا هنا وها برنامج كان محل قد حلا قربها وآلا نلدا ذهين شري نصاحبك أحمد عينم أحنا قبير متدير شري أما نور سني كنا كلا بروح كسوقاتي قربها نقولنتي أحمد كسروا برنامج كان ودوهي رشيد أتجيو برنامج كذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا وأخو سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا كفرح سنة هنا نقيب كان نقدر برنامج كذا ما شاء الله. طبعا برنامج كقيب السفرات يعني سوق هنقول سوق القرطبة. أنكم بلاغو سؤالها قربها sida magaca hore ugu soo xusnaa maxaa laga dhaxlaa qurbaha dama waxyaalo badan baa laga dhaxlaa صح dad badan oo ku xirnaa barnaamijkan ayaa si gaar ah wax dhaheen صح bal noo soo faahfaahiyo waxa laga dhaxlo qurbaha marka taas kan su'aasha koowaad inaan ku qabto maxaa laga dhaxlaa qurbaha sidiisa والله رشيد وقربها سؤاشن way jawaabo badan tahay waxayna ku xiran tahay hadba qofka aad weydiiso sababtoo tahay waxa weeyaan qurbaha waxyaalo badan baa laga dhaxlaa dad waxay dhihi karaan qurbaha wanaag baa laga kulmaa oo wax fiican baa ay kaaga tilmaamaan dadna waxay ku leeyihiin qurbo waa meel lagu hoogo lagu ba'ay hoogay ba'ay hadaan dalka anagu uu wanaagsan yahay dib baan u noqon lahayn marka anigu su'aashaas anoo soo koobay su'aashaas jawaabteedu waxay noqonaysaa waa hadba qofka aad weydiiso laakiin Axmed Cayna aan haday tahay maanta aniga qurbaha waxaan aaminsanahay qof walba sidoo ula macaamilo nolosha qurbaha ayuu uga jawaabi karaa ama uu meel ku gaari karaa dad baa wanaag u arki kara oo ku oranay inuu shaqaynu ka helay waxbaynu ka baranay ilmaheena iskuul baynu geeyay jaamacadaha laga baxay yaani dadka dalka ku nool baynu la mid noqonay dadna waxay ku leeyihiin noloshii waa nagu adag tahay waa rafaad waa ninkaar waa wadan faxshi miiran qurun lama imaan karo wadan gaalo diintii baa naga dhumaysa marka su'aashan jawaabo badan oo kala nooc ayaa loo fasiri karaa marka kulay taasi waxay ku xiran tahay saan anigu qabo qofkaas hadba weydiiso inuu waa seef loo aflex aadi ku jirtid bay aadi okay su'aashan hadda soo socota su'aashan dambe dabcan aad ka Axmed Mahan wax badan baa joogta qurbaha صح balqaasata nafsadada maxaa kugu la yaabka badan ama kugu saameynta badan aad ka dhaxashay marka xataa kaliya aad ogaa dib u xasuusto kugu noqoto wax aad kugu qosol badan sidoo horta runta waxyaalaha igu cajiibka badnaa horta waa wadan aan garanayn cimiladiisa horta waxa igu yaabka walaal waxay ahayd cimilada ahayd cimiladu aad iyo aad u qabow baraf aad u tira badan yaani qabow aan inaba la xamili karin ayaan horta la kulmay markaan imid wadankan waxaan soo galay marka isagoo winter bilowday baan soo galay ma aanan garanayn waxyaalaha igu yaabka badnaa waxay ahayd baraf TV baan ka arki jiray ma arkin يعني habeenkii aan soo degay oo aan diyaardeena soo dejiyay waxaan arkay dhulkii wada cad horta wada baraf markaas waxay raadeen ma barafka la sheegaa ma dadka kan intay kibirkii intuu ka batay caanaha saa u daadshaan يعني صبحي habeenkii apartment-ana la dejiyay intuu waaga ka bariyay waa suugi kari waay ilaa markuu bilaalbaak inta ka baxa aan ordo soo taabto waxaan maxay ilaa aan gacanteeda ku taabto marka that was one of the moogtay waxay igu noqotay wax igu yaabka badan horta aan kala kulmo bay igu noqotay oo arrin cajiib ah bixina waxaan garanayn oo aad markii ku horeysay aad aragto hadana dadkiina waxaad way dadkiina dambe ilbaxana waa imaan dadkiina hore waxa way anaga waliba idinka waxaad iska fiicdin idinka wax liisi akhriyo oo social media soo helay dadka inta halkan ka taga gadaal noqdo idinka sheekeeyo waxyaalo badan baa artay anaga markaan iimaan waxay cid nooga sheekaysa xataa ma arnin inda xiran Soomaalidu ku yarad meesha waa tahay dabcan waxaad tiri qurbaha waxa laga dhaxlo waa haba sida adigu aad ula shaqeysay ama aadi waxa jira dhalinyaro badan oo hadda qurbaha oo bilaabanayso صح noloshooda koowaad صح maxaad dhihi lahayd waxaan soo seeray bal ka faa'iideysta adinka
su-aashaas horta waxaan u maleynayaa interviewgii horena waa ku jirtay qurbaha dhalinyarada imaanayso anigu waxaan kula talin lahaa maadaama dad da'yar yihiin haddaysan inkastoo annagoo dhanba horta culays baa iska kahay saarano Soomaali baano dadka aniga waa wada baahan haddaysan culays family badan uusan jirin waxaan ilaa waxa la barto wadankan waxaa meel lagu gaari karaa nin wax bartay baa meel gaari kara dhakhtar baa la noqon karaa engineer baa la noqon karaa yacni accountant dhaqaalaha la baran karaa caafimaadka la baran karaa engineeria la baran karaa petroleumka la baran karaa yacni wadankan waxaa taalo opportunity wax lagu barto qofku waa inuu wax bartaa waxbarasho ayaana meel ku gaari kartaa xataa haddaad wadankii u noqoto waxaad halkan wax ka baratay waad ku shaqaysan karaysaa marka waxaan anigu qabaa fikir ahaan in wax la barto waa very important weeyaan sababtoo tahay waxbarashada in badan ayay ka caawinaysaa waxa isku dhaafay waxbarashada aad iyo aad dabcan su'aashan maadaama aan matalaysid qurbo joogta qaasatan reer Canada aan la kaftamo adana ka wakiila صح su'aashan waa su'aal kaftama صح inta badan dadka waxa la waxay isku dhiibaan daada yar haye bal qof maxaa ana dhibaato ay qofka soo wajihi kartaa dad da'yar isku dhiibto da'yarsan waxaad rabtaa adiga markay inay Soomaalidu inay maanta la dagaasho doonayso fiya arintani anigu kulli jawaab kama bixin karo laakiin fikirkayga ka dhiibanaya fikirkayga oo iska yara gaaban oo aan u maleynayo inuu dadku ugu fikir gaaban aan ku jiro laakiin haddana anigu waxaan aaminsanahay qofka da'diisa inuu ku meel maro way jirtaa waan maqlaa sheekooyin qof da'yar isku dhiibay oo haddana waqtigii da'dii weyneed dhaafay oo xilligu nasan lahaa ama retirementiga ugu yeeraan la gaaray laakiin uusan nasan karin sababtoo tahay da'dii oo yar darteed marka arrimahan aniga ma rabo inaan social media ka sheego ama hadhow aniga eed la qabsado laakiin anigu waxaan qabaa fikir ahaan qofka da'diisa inuu isku dhiibo sababtoo tahay daacadnimada iyo runka sheega noloshaada ay u fiican tahay azadiiniin xataa qofka inuu daacad ku dhaqmo waan ogahay qofka laga yaabo inuu haduu da'yar isku dhiibay ay waxyaalo badan oo ku kalifay ay dhici karaan nolosha adag Soomaaliya laga soo cararay dagaalo rafaad waxyaalo badan inay jiraan laakiin haddana azadiiniin qof muslim ah nooma siinayso nafteena inaan been sheegno ilaahayna waa diiday annagana waxaa nagu fiican inaan runta kaga socono haddaan konton jir konton baan jira haddaan 25 jirin 25 baan jira intaa in la dhaafiyo anigu ma qabo laakiin qofkii isku dhiibay da'yar ama da'weyn waa wax isaga iyo su'aashaas aniga kama jawaabi karo meesha kaga baxaya dabcan barnaamijkeenu aad kama bixi jirin gudaha dalka Canada laakiin caawa bal ku dulgeeyo dalkii aan yar xusno hadda waxa ka socda olole doorasho صح ولو لو جرى وقت مانديت كمحمد سيد لو دوكسون يوم دماضي لكن ولي وتصيح يو سيدنا نقول بابنا واتاي دو علقه ودنكي ودنكي ان كل لابتو صح maxay kula tahay in hada heerkan maanta Soomaaliya dhawaaqad naga soo yeeriyaa ma ka maqlino ka siyaasad ahaan doorashada ee wadanka hadda wax ka socda runtii horta anigu siyaasi mihi siyaasadda ma jecel inaan ka qayb qaato rin iska waxaan iska xamaali oo dantiisa yaqaan oo ilmihiisa iska korsadaan ahay laakiin siyaasadda Soomaaliya waxay noqotay in lagu dul dagaalamo dad masaakiin ah oo waxba aan haysanin in dushooda lagu isku baabiyo maalin walba because of loo orday xukun dartiis xukunka waxa fiican in lagu doorto oo adiga lagu soo raadsado laakiin xukun dadkii u kala ordayaan kii shalay ka dagay kii joogay kii hore u joogay kan hadda raba kulli waxa moodaa in aniga fikir ahaan waxaan qabaa madaxweynuhu sharcigu ku jooga haduu waqtigiisa dhamaaday in wixii wanaag lagu raadiyo oo la yiraahdo waqtigaadi waa dhamaaday mandate-kaadi waa dhamaaday doorasho qabo marka isagana waa kuwa uu khasban yahay inuu doorasho qabto laakiin dhawaaqyada yeeray iyo waxyaalaha qaarkood dhacay oo sida social media waxa lagu soo qoro ama lagu soo wixii ka jiro horta Ilaahay baa naga ogo inta badan social media iyaga laftooda hadda waxa way aaminadoodii waa yaraatay oo waxa laga sheegayo dadkii waa supporters iyo against la kaliyo qaar madaxweyne farmaajo taageeray qaar ka soo horjeedo qaar musharaxiinta taageeray qaar ka soo horjeedo anigu waxaan ku soo gabagabeyn lahaa
wadankan dagaal iyo rabshad waa ka soo daalay wuxuu u baahan yahay peace iyo nabadgelyo iyo horumar buu u baahan yahay waxaan dhihi lahaa dadka xukunka isku eriyanayo fariista oo wada hadal ku dhameeyo oo dadkan masaakiinta xal nabadeed hal la helo ka daaya wadankan dib u dhac kale hal laga daayo taas aan ku talin lahaa aad waxa daawadayaal intaas waxaan uga ka barnaamijkeeni maxaa laga dhaxlaa qurbaha dabcan barnaamijkan waxaan soo sideynaa wiigiiba mar walow hadda aan soo noo sheegay aan baan isku imaan karin oo maanta covid-ka uu jiro barnaamijkan nooga hakaday laakiin insha Allah waxaan isku dayeynaa hadii Ilaahay yiraahdo hadii wax kale soo siyaadin sidii aan barnaamijkan ugu wada jirnay aynu ugu wadno inta ku kulmi doonno barnaamijka xiga waa rusheeg media oo la sidaas iyo amaan Allah tushadiyo laadiyo xaraab dheer langabi ku taaloy lulayaan dabayluhu xiisaha ku laalane kalgacaylkii lumiye laxoskii ku dumiye guurkii lugooye leefoo hal